mar labaad waxaa maanta sharaf noo ah inaanu u nimid xafladda tan lagu wareejinayo ama aanu ku wareejinayno taakuladii iyo taageeradii aanu ugu talagalnay dadkayagii ay saamaysay duufaantii ku dhacday degmada Laasgeel magaalada Dacarburuq gaar ahaan dabcan ilaahumba subxaanahu wa tacaala dee ciwad bixinta keligeena ibni aadmigu wuxuu qabtaa wuu iska kooban yahay wixii dadku qabtaa waa wax kooban laakiin mar haddii masiiba dhacdo oy soo gaadho dadkaaga waa waajib dhammaanteennana saaran qof kasta intuu awoodo inuu kaga qayb qaato dadka walaalahee baahan ee dhibku gaadhay in la caawiyo la gacan qabto aad buu mahadsan yahay caaqil mascuudo wuu noo mahadnaqay laakiin waxaan leeyahay mahadnaqa waa waajibna saaran oonu gudanayno inaanu ummadda yar iyo dadkayga dhibku soo gaadheen aanu la qaybsanno dhibka ilaahayna subxaana wa tacaala ummadda markay isku naxariistaan buu iyagana u naxariistaa marka waxaanu u aragnaa annagu inay tahay waajibna saaran oonu gudanayno oo dadkayaga dhibku gaadheen inaanu la qaybsanno xanuunka iyo dhibta waxaa laga yaabaa inay duruufo adag guryaha ka burburay ku dhisteen waxaa laga yaabaa inay dadkaasi dad iska mataqaanaayeen jeeb yar oo markii hore duruuf adag ay ku qaadatay haddana bannaanka joogo oo alaabtii iyo dhibkii iyo wixii o dhan bannaanka u baxeen oo gurigu hadduu dumo guriguunuma dumee waxa dhex yaallaana wuu baaba'o dee roobkii mar hadduu gurigu u bannaanaado wixii dhex yaallayna wuu baaba'ayaa ilaahay subxaana wa tacaala waxaanu uga baryaynaa marka hore inuu ciwad khayr qaba siiyo mar labaadna waxaanu leenahay ilaahay subxaana wa tacaala ugu mahadnaqa waxaad leedihiin dal waxaad leedihiin dad waxaad leedihiin ummaddiidii naxaysa qaybun baanu annagu kuwaa ka nahay waana waajibna saaran mana aha Dacarburuq meeshii ugu horreysay ee dhibi ku dhacdo waddanka abaara waddanka ka dhacay duufaano waaweyn oo duufaantii sagar ku jirtay baa ka dhacay kuwo hadda tan ka horreeyo maalmo ka horreeyaa jira intaba wixii awoodayada ah waanu kaga qayb qaadanaa annagoo u aragnay inaanu gudanayno waajib iyo ummaddayada waayo hadday ummaddu wanaagsanaato annaguna waanu shaqaysan karnaa haddii laakiin ummaddu baabaado annaguna meelaanu ka shaqaysanno heli mayno marka in laysku naxariisto laysku tiirsanaadaa waa waajib aad baan ugu mahadnaqayaa guddoomiyaha degmada iyo odayaashiisa oo noogu yimid oo arrintan aanu ka wada hadalnay markii intaanaan iman markaanu u soo bandhigayno waxaanu hayniyo waxaanu tari karno waxaa laga yaabaa waxaanu tarnay inayna wada kafayn oyna wixii baahidii wada daboolin laakiin waxaa laga yaabaa dad badan oo muxsiniin oo kalena inay wax badan soo tari doonaan dowladda waynu ka hadalnay oo waxay soo tartay waa kuwa nimka inoo jooga dowladdii ganacsato kale waa la sheegay inta kale ay naga maqanina waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inay soo taraan ugu dambeyn waxaan ku soo gabagabeynayaa maanta halkan waxaan ku wareejinaynaa annagu haddaanu Telesom nahay 500 kiish oo sibir ah oo nugu talagalay guryihii dumay in lagu dhiso iyo 1200 oo jiingadood oo iyagana aan ugu talagalay guryaha in lagu dhiso laakiin ismalihii way kafaynaysaa way dhamaystiraysaa baahidii degmada taalay laakiin waa intii aanu awoodaynahay aanu isla walaalihii waad ku caawin kartaan waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala aanu weydiinayna dadkaana ciwad khayr qaba dowladda iyo dhammaan mas'uuliyiinta degmada iyo cid kasta oo hawshaa ka qayb qaadatay waanu mahadnaqaynaa aad iyo aad baan markale idiin salaamaynaa waxaan leenahay markani kii ugu dambeeyay annaga iyo reer Dacarburuq maaha waxaanu nahay dad wada shaqaysta waxaanu nahay dad isku mira waxaanu nahay dad wada jooga ilaahay subxaana wa tacaala waxaan uga baryaynaa inuu nasiibada dib ugu soo celin intii nasiibadu gaadheen insha Allah ciwad khayr qaba ka siiyo salaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh si gaar ah ugu sii mahadnaqayaa shirkadda Telesom haddii maxamed shirkadaha arrinta ka soo qayb galay way mahadsan yihiin jazaakumullahu khayr bacda salaam Telesom oo inala gurmadkeen laga soo qayb gashay iyo shirkadii halkan wax ka bixiyay Telesom iyo Tawfiiqba gobolka Maroodijeexo gudoomiyaha iyagina halkan fadhiyo laba degmo wax ka dhaceen degmadii Salaxley markii hore aanu guumanay annaga iyo Telesom iyo dawladda iyo dhamaanba tii labaadina waxay ahaydeen degmada Laasgeel waxaynu mahadnaqaynaa cid kastoo ka qayb qaadatay dhibaatadii ka dhacday labada degmo ee Salaxley iyo Laasgeel ee gobolka Maroodijeex oo ugu horeyso dawladda Soomaaliland oo gurmadkii ugu horeysay labada degmaba gaarsiisay shirkadaha ganacsatada oo shirkadda Telesom ganacsatada kale iyo waayeelka iyo cid kastoo ka qayb qaadatay dhibaatooyinka ka dhacay labada degmo waanu mahadnaqayaa kaloon aad iyo aad ugu mahadnaqayaa oo mahadnaq ballaaran runtii la shirkadda Telesom oo halkan Laasgeel oo maanta aynu joogno iyo haddii ilaahay badankeeda kule meesha la yiraahdo Salaxleyba kaalin weyn runtii ka qaatay oo alaab aad u fiican keenay 1200 oo jiingadood keenay halkan iyo sibir 500 keenay oo runtii dadka wax weyn
ka taraya sidoo kalena geeyey laba kun iyo jiingadaba runtii iyo sibirba geeyey salaxlayna runtii geeyey aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxaa ka mid tahay waxa la yidhaha social responsibility ama mas-uuliyadda bulshada shirkadaha kale waaweyn inay iyaguna ka soo qayb galaan sida ay ugu maaragtay Telesom iyo Tawfiiq oo kale yaan ugu baaqaynaa marka airlines-ka guud ahaan waxaan jecelahay inaan marka labaad mahad gaar u soo jeediyo halkan uga soo jeediyo shirkadda Telesom waxaan ku wareejinayaa wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka iyo gudoomiyaha gobolka iyo maayarka degmada iyo maayarka caasimadda agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo gudoomiye ku-xigeenka gobolka Maroodijeex qalabkii aanu ugu talagalnay inaanu ku taakulayno dadkii ku waxyeeloobay duufaantii ku dhacday degmada Laaskeel gaar ahaan magaalada caasimadda ah ee Dacarburuq wasiir halkan waxa saaran 500 oo kiisho sibira iyo 1200 oo jingadood waa baabuurkan iyo laba baabuur xaggan hore inaga xiga waxaan rajaynayaa nagala wareegtaan gudoomiyaha gobolka maayarka caasimadda maayarka degmada agaasimaha guud iyo gudoomiye ku-xigeenka gobolka Maroodijeex dhamaantiin iyo maax oo ka tirsan shirkadda Telesom waxaan halkan marakonahay inaanu kala wareegnay shirkadda Telesom agabka kooban 1200 oo jingadood iyo 500 oo sibira oo ay ugu tala galeen dadkii ku waxyeeloobay duufaantii ku dhacday degmada Laaskeel gaar ahaan caasimadda Dacarburuq aad iyo aad baad mahadsantihiin waana idin kala wareegay. Assalaamu calaykum.